xafladan oo ahayd mid si weyn loo soo qaban qaabiyay ayaa waxaa ka soo qayb galay boqolaal qofood oo ka kala socday bulshada qaybaheeda kala gedisan. waxaa sidoo kale xafladda goobjoog ka ah mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo isugu jiray xubno ka socday labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya. waxaa halkaasi lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo sidoo kale suugaan kale. waxaa halkaasi suugaan kala duwan ku soo bandhigay fanaaniintii hore iyo kuwii dambe oo markaasi uu ka mid ahaa Shimaali Axmed Shimaali, Saciid Daa'uud Cali Masxaf, Dayaxdal Nuurshe iyo kuwo kale. mas'uuliyiintii goobta joogtay waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya, Sahro Cumar Maalin oo ka tirsan golaha shacabka iyo Senator Samsam oo ka tirsan golaha aqalka sare. wasiir Xoosh Jibriil ayaa si weyn u soo dhaweeyay gudoomiyaha guddiga difaacayaasha bariga iyo bartamaha Afrika Xasan Shire iyo xaaskiisa, waxaana uu sheegay in markaasi uu aad ugu faraxsan yahay in caawa meel qura ay joogaan isla markaana xaaskiisa oo dalka ku cusub ay timaado dalka markii ugu horeysay. xasan Shire markuu gabadhan dooranay aniga iyo nin la yiraahdo Maxamed Geed Santuur oo Kampala degan ayaa ciyaartoydii hore ah iyo Maxamed Cabdirasaaq la yiraahdo hadda oo madaxweynaha la taliyaha ah iyo Khadiija Gurxan isla la yiraahdo Allahu naxariisto Jamaal Haydiin xaaskii u kalinta ayaa doonay asaga. waxaan ka baawur ka qaadanay Kampala, waxaan u qaadanay meel 10 saac oo socona oo xuduudka Tanzania. markaan aan tagnay meesha aabaheed markuu xawaa meesha ay degan yihiin wuxuu ka yahay chief oo aad looga dambeeyo. marka madaxweynaha uu galaayo doorashada ninka uu wakiisho waa meesha, marka community aad lagu yaqaan. marka na family aad u fiican waay. gabadhaas marriage kaas ka timid wala Carraweelo oo aad u maskax badan, wali 2 sano ma gaarin. maalintii yimaadeen xasan Xukuure ninkan waxa waay Uncle Xoosh wixii ka dambeeyo hadaa ilaahdo saasaan dhahaan Uncle Xoosh. Sahro Cumar Maalin oo ah xildhibaanad ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa waxay dhiirigelisay in dalka lagu soo laabto, waxaana ay sheegtay in ay bogaadinayso Stephen oo ah xaaska Xasan Shire oo dalka timid markii ugu horeysay iyada iyo gabadheeda. Xasan Shire iyo xaaskiisa Stella iyo gabadheeda yarta Carraweelo oo ku soo dhaweynaya xamar ku soo dhawaada xamar ku farxa. waxaan rabaa inaan raacido u hambalyeysaan soo dhaweysaan. Xasan Shire oo ah gudoomiyaha guddiga difaacayaasha bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika ayaa wax uu ka sheekeeyay muddadii dalka uu ka maqnaa, waxaana uu sheegay in markaasi ay wax weyn u tahay in dalka lagu soo dhaweeyay isaga iyo xaaskiisa. ani meeshan waa magaaladeedii markii burburka iyo dhibaatada ay ku dhacday oo ku soo laabtay. xarun baan ka sameynay la yiraahdo xarunta Ismaaciil Jimcaale ee xuquuqda aadanaha. wasiirka iyo xaaskeyga waa wada tagnay, shalay waa soo booqanay. hay'ad la yiraahdo hay'adda isku xirka nabadda iyo xuquuqda aadanaha oo inta badan fanaaniinta arkaysiin aan kula falgalnay oo aan ku sheekaysan jiray. shirkii Carte ee koowaad qabanqaabadiisii iyo abaabulkiisii qayb baan ka naqanay. waxaan maqlaynay gobolladii meeshaan ka hadlayay imaatinka Carraweelo inay dhaheen colaadu ha ku danto. wiilashan yararka ah la jahwareeriyey oo faqrigu jahwareeriyey ka dambana gacan arrimo kala wadato intuu u timid ay damacday in ay jahwareer aan dhammaanin ma dhammaata ah inay ku sii wado waddankan. ilaahay ha nooga badbaadiyo dhallinyaradeenna, bushoodayaashaasna ilaahay ha naga wado. waxaa xafladda lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka qaybaheeda kala duwan
iyadoo halkaasi fanaaniintii heesaha ka qaadayeyna ay qaadeen suugaan lagu soo dhaweynayay xasan shire iyo xaaskiisa Stephen iyo sidoo kale gabadhooda Caraweela. xasan shire oo ah u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha waxa uu ahaa aas-aasihii hay-adda inxa iyo xarunta xuquuqul aadanaha ee Dr. Ismaaciil Jimcaale waxaana dalku ka tagay 16 sano ka hor isagoo xarun kale ka sameeyay Farxiin Muraad, Dalsan TV, magaalada Muqdisho.